filimkani waxa uu bilaabanaya 1956 waana qiso dhab ah oo ku dhacdayna qoys weyn oo ka kooban 12 qofood. Evelyn waxay ahayd hooyada taas waliba isku dayaysan inay lacagta ay ka keentana meel kasto, qaasatan tartamada TV-yada ay qaban jireen xilligaas oo caanka ay ku ahaayeen. Evelyn waa hooyo isku darsatay oo kaga duwan hooyooyinka kalena xirfad iyo dadaal iyo go'aan. Haddii tartanka ay ku guuleysatan mar kale ay galaysa ayadoo ku qaraabanaysan magaca caruurteeda mid kamid ah walibana waa la ogol yahay waana qaanuun. Evelyn nasiibkeeda oo wanaagsan waxa ay awooday inay ku guuleysatan tartamo badan ilaa maalmaha kamid ah imaaday ninka guriga ay deganaayeen iska lahaay. Waxa uu ku dhahay 3 isbuuc kadib waa ina guriga ii faarujisaa maadaama cunugeyga weyn uu ku aroosayo. Evelyn ninkeedana maysan aqoonin meel ay aadaan mana aysan haysanin lacag ay ku ijaartaan guri kale. Halka laakiinse waxa uu ku jirayna tartamada ay gashan Evelyn. Isla markiina waxa ay ku guuleysatayna lacag aad u badan. Wiilkeeda ayna waxay u gadana baaskiil maadaama asaga magaciisa ay ku qaraabatay markaas. Isla markiina lacagta inta kale waxay ku iibisayna guri ayaga ay leeyihiin. Ninkeeda magaciisa ayna ku qoratayna magaca dhulka iyo gurigaba. Gurigana waxa lagu camarayna qasaalad iyo filinjeerka ay ku guuleysatayna Evelyn mid kamid ah tartamadeeda. Aabahan waxa uu dhahay filinjeerka anagu man anfacay waa weyn yahay wax badan ayuu qaadaa anakana ma buuxi karino. Koronto badan ayuu u baahan yahay laakiin Evelyn